بسم الله الرحمن الرحيم وهبين مسبتيه oo ay xad soo galayso 14 bisha March sanadka 2026 oo ku beegan 25 bisha Ramadaan sanadka 1447 taariikhda hijriyada ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii qubanaha qodobada caawa barnaamijkan aan idinkugu haynana waxa kamid ah ciidamada ilaalada kacaanka islaamiga ee Iran oo mar kale caawa weeraro loo adeegsaday sawaariikh iyo diyaarado doon ah ku qaaday goobo xasaasiya oo ku yaal gudaha Israa'iil iyo saldhigyada ciidamada Mareykanka iyo waliba xarumaha diblomaasiyadda kuwaasi oo qaarkood dab oo ka holcayo inkastoo Iran weeraro aan kala joogsan lahayn ay wado madaxweynaha Mareykanka ayaa ku dhawaaqay in Iran la jibiyay oo laga guuleystay hadalkan ayuu sheegay Trump saacada kadib isagoo yiri dunida waxaan ka dalbanaynaa maraakiib dagaal Netanyahu oo Ukraine u qaylo dhaansaday isla markaasna weydiistay in ay ka caawiyaan sidii looga hortagi lahaa diyaaradaha drone-ka Iran ay ku weeraraysa Israa'iil kuwaasi oo maaro iyo taag loo laayahay mid ka mid ah dalalka Yurub oo Mareykanka u diiday in saldhigyadiisa loo adeegsado weerarada lagu qaadayo Iran muwaadiniinta Mareykanka oo la amray in ay si degdeg ah uga baxaan wadanka Ciraaq sababo amni awgood Iran oo si xoojisay weerarada ay ku hayso Imaaraadka Carabta Sacuudiga Qatar Jordan Bahrain iyo Ciraaq sheekada ugu dambeysay barnaamijka aan idinkugu hayaana waxay ku aadan tahay waxaynu ku bilaabaynaa dhankaas iyo xiisadaha colaadeed ee gobolka Bariga Dhexe iyadoo wararkii ugu dambeeyana ay sheegayaan Iran in ay wado weeraro culus ciidanka ilaalada kacaanka islaamiga ee Iran oo magacooda loo soo gaabiyo IRGC ayaa sheegay inay caawa qaadeen mawjadii weerar ee kontonaad ee qaybta ka ah howlgalka ballanqaadka dhabta ah dufcadiisa afraad howlgalkan oo loo adeegsaday diyaaradaha droniska iyo waliba sawaariikh ayaa la sheegay in lagu beegsaday saldhigii Mareykanku uu ku leeyahay gobolka Bariga Dhexe iyo waliba goobo xasaasiya oo ku yaal gudaha Israa'iil warbaahinta dawladda Iran ayaa waxa laga tibiyay in goobaha la beegsaday ay ka mid yihiin saldhiga ciidanka Mareykanka ee ku yaala dalkaasi Imaaraadka Carabta gaar ahaan duleedka magaalada Dubai ee lagu magacaabo Al-Dhafra sidoo kale saldhiga ciidanka cirka ee isna ku yaal Imaaraadka Carabta ee Fujairah ayaa la weeraray kan Jufair ee Bahrain ayaa sidoo kale weerar lagu qaaday sidoo kale isla Bahrain saldhiga shanaad ee ciidanka Mareykanka ayaa la weeraray saldhiga ciidamada cirka ee Kuwait ku yaal ee Al-Salam ayaa kamid ah goobaha la beegsaday iyo sidoo kale saldhiga Al-Azraq ee ku yaal dalka Jordan sidoo kale ciidanka Iran ayaa sheegay in ay burburiyeen raadarada digniinta hore bixiya ee Israa'iil ku yaala kuwaasi oo la sheegay in weeraro culus lagu qaaday warbixinta ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in weeraradan loo adeegsaday diyaaradaha aan duuriyaha lahayn ee sida saxda ah u ogaan kara meelaha ay ku dhuumanayaan askarta Mareykanka isla markaasna ay ku socdaan xog sirdoon isla wararkan afayeenka xarunta dhexe ee howlgallada ciidanka Iran ee Khatimul Anbiya ayaa waxa ay sheegtay in ay fuliyeen howlgallo kala duwan oo ku jihaysna goobo kamid ah gudaha Israa'iil waxaana sidoo kale xaruntan ay sheegtay in la soo riday diyaaradaha drone-ka ee aan duuriyaha lahayn kuwaasi oo ay leeyihiin Mareykanka iyo Israa'iil diyaaradan mid kamid ah oo nooceedu uu yahay Orbiter 4 ayaa lagu soo riday magaalada Tabriz halka laba kale oo nooca Hermes lagu soo riday Tehran iyo magaalada Andimashq dhinaca kale warbaahinta Iran ayaa xaqiijisay in la dilay General Abdullahi Jalali oo kamid ah saraakiisha sarsare ee militariga Iran kadib weerar ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka iyo Israa'iil isla warar arrimahan la xiriira madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu sheegay waa sida hadalka u dhigaya in Mareykanku uu ka adkaaday Iran isla markaasna si military iyo dhaqaalaba uu u burburiyay
Trump ayaa sidoo kale sheegay in dalalka caalamka ee dhoofsada shidaalka ka gudba marinka Hormuz ay tahay in ay daryeelaan marinkaasi, isagoo intaasi ku daray in Maraykanku si weyn uga caawin doono arrintaasi. Wuxuu sidoo kale sheegay in Maraykanku kala shaqayn doono dalalka dhoofsada shidaalka ka gudba marinka Hormuz si loo hubiyo socodka maraakiibta iyo in markaasi si habsami leh oo hufan ay halkaasi uga gudbaan maraakiibta. Isla wararka Maraykanka, safaaradda Maraykanka ee magaalada Baghdad ayaa sheegtay in muwaadiniinta Maraykanka ay tahay si degdeg ah inay uga baxaan waddanka Ciraaq. Safaaradda ayaa sidoo kale sheegtay in maleeshiya taageersan Iiraan ay weerar ka fuliyeen bartilmaameedyo ku yaal gudaha Ciraaq, gaar ahaan kuwa Maraykanka. Haddaba aynu tusino mid ka mid ah muuqaalada muujinaya dab ka kacaya xarumaha la weeraray ee waddankaasi Ciraaq Maraykanku uu ku leeyahay, halkaasi oo dab xooggan uu ka holcay. waxaana lagu soo warramayaa in arrimahani ay ugu wacan yihiin xaaladaha adag ee halkaasi ka jira. Muuqaalkan aad u jeedaan waa mid ka mid ah muuqaaladii ugu dambeeyey ee muujinaya dabka ka kacaya xarumahaasi. dhanka Israa'iil haddii aynu eegno, wargeyska iyo dacwada xarunood ee ka soo baxay Israa'iil ayaa waxa uu ka soo xigtay ila Israa'iiliin ah oo sheegaya in ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu uu dalbaday in wadahadal uu la yeesho madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky si iskaashi ay uga yeeshaan sidii loo joojin lahaa diyaaradaha droniska ee Iiraan, kuwaasi oo maaro iyo taag loo laayahay. weerarada kale ee Iiraan ay ku qaaday dalalka gobolka haddii aynu qooraansanno, hay-adda duulista rayidka ee Kuwait ayaa sheegtay in garoonka dayuuradaha caalamiga ah ee Kuwait lagu weeraray diyaarado drone ah, kuwaasi oo ku dhacay nidaamka raadarada garoonka, laakiin waxaa la sheegay inaysan geysan khasaare nafeed marka laga tago khasaare hantiyeed. xagga Qatar, wasaaradda difaaca ee dalka Qatar ayaa ku warramaysa in Qatar lagu soo weeraray 4 gantaal oo balastiga iyo diyaaradaha droniska, kuwaasi oo ka yimid Iiraan saacadihii la soo dhaafay. wasaaradda ayaa sheegtay in ciidamada qalabka sida ee Qatar ay ku guuleysteen inay ka hortagaan dhammaan droniska iyo gantaalada balastiga sida hadalka loo yiri. Bahrain, wasaaradda arrimaha gudaha ee waddanka Bahrain ayaa ku dhawaaqday in la maqlay dhawaaqa seeriga digniinta ka bixaya gantaalada, waxaana la sheegay dadka in lagu wargeliyey in ay ku cararaan goobaha ugu dhow ee ammaanka ah. war kale oo colaadan la xiriira, ururka Xisbullah ee reer Lebanon ayaa waray caawa soo saareen waxay ku sheegeen in ay burburiyeen taangi ciidanka Israa'iil ay leeyihiin kadib markii ay ku dhufteen gantaal la hago xilli isku dayay inuu u soo dhaqaaqo albaabka bari ee magaalada Tayba. kooxda ayaa sidoo kale sheegtay inay gantaal ku garaaceen meel ay ku urursanayeen askarta Israa'iil ku sugnaa buurta Hamamas ee koonfurta bari ka xigta magaalada Khiyaam. Xisbullah ayaa intaasi ku dartay in gantaal ay ku garaaceen askar Israa'iiliin ah oo ku sugnaa agagaarka xarunta xabsiga Khiyaam ee koonfurta Lebanon, halkaasi oo sidoo kale la sheegayo in ay khasaare u geysteen ciidanka Israa'iil. war hadda soo dhacayna waxaa leeyahay Xisbullah waxay weerartay goobo ku yaal deegaanka la yiraahdo Mutilla ee koonfurta Lebanon ku dhow. hagaag waxaan u gudbaynaa wararkii ugu dambeeyey ee xaaladahan ee soo kordhay, gaar ahaan mid ka mid ah wadamada reer Yurub oo Maraykanka u diiday in ay isticmaalaan saldhigyada militariga oo lagu duulayo Iiraan. gabdhaha kubadda cagta Iiraan oo waddanka Australia u tagay ciyaar ayaa arrin cajiib ah oo lala yaabay sameeyay. sheekadaas way noo soo socotaa, iyo weliba sidoo kale muslimiinta dunida iyadoo dhibaato lagu hayo ayaa haddana dadka qaadanaya diinta islaamka ay soo kordhayaan. dhacdo ka dhacday masaajid Soomaalida ku leedahay waddanka Maraykanka ayaan kaga haynaa arrin muhiim ah oo halkaasi ka dhacday. intaan u gudbin wararka kale, bal aynu eegno wararka ugu dambeeya ee soo dhacay xilligan oo barnaamijka aynu ku jirno, iyadoo wararkuna ay yihiin kuwo iska soo daba dhacaya. hagaag iyadoo dagaalka caawa ay galay habeenkii 15aad, waxaa lagu soo warramayaa xilligan oo barnaamijka aynu wadno in meel Maraykanka ay ku leeyihiin waddanka Ciraaq oo ah goobaha sahayda in la weeraray. waxaana la maqlayaa seeriga digniinta ka bixiya
gantaalada dhinaca kale magaalada Abu Dhabi ayaa waxaa la sheegayaa in la weeraray goobta shidaalka lagu safeeyay ee la yiraahdo Ruways ee waddanka Imaaraadka Carabta dhanka Iiraan waxaa la sheegayaa magaalada Shiraz ee ku taala koonfurta waddankaasi in laga maqlayo qaraxyo wararka ugu dambeeyay ayaa halkaasi ka imaanaya ayaa tilmaamaya dhanka Lubnaan waxaa la sheegayaa 5 qof in lagu dilay 7 kalena lagu dhaawacay magaalooyinka la yiraahdo Mefdon iyo Mashdal Salaam kadib markii Israa'iil weerar ay ku qaaday halkaasi waxa kaloo hadda soo dhacay war kale oo dhanka Israa'iil laga soo gaaraya telefishinka Kanal 12 ayaa waxa uu leeyahay gantaaladii ugu dambeeyay caawa Iiraan ay ku soo weerartay Israa'iil waxay wateen bambaanooyinka firdha ma ahan oo kaliya Iiraan xitaa waxa la leeyahay Hezbollah ayaa iyaduna toddobaadkan gantaaladii ay soo riday qaarkood waxa la sheegay inay wateen madaxayda firdha arrintan wali weyn ayay ku haysaa dhanka Israa'iil waa tahay markan bal waxaynu eegaynaa magaalada Geneva war ka soo baxay dowladda waddankaasi Switzerland dowladda Switzerland ayaa sheegtay in maanta ay Mareykanka ka diiday codsi ku saabsanaa in duulimaadyo military ay ka gudbaan hawadeeda kuwaasi oo Mareykanku uu doonayay in ay weerar ka geystaan waddankaasi Ciraaq golaha federaalka ee dowladda ayaa iyagoo tix raacaya qawaaniinta dhexdhexaadnimada waxay gebi ahaanba diideen codsigaasi oo 2 mar Mareykanku u soo gudbiyay waxaana ay sheegeen inaysan sinaba ku aqbalayn in diyaaradaha dagaalka ay ka gudbaan waddankaasi hawadiisa war kale oo arrintan la xiriira haddii aynu eegno oo dhanka Iiraan la xiriira warbixin ayaa waxay sheegayaan in 3 xubnood oo ka mid ah gabdhaha xulka kubadda cagta ee waddanka Iiraan in ay ka laabteen magangeliyo ay ka dalbadeen waddanka Australia sida ku waramaysa wakaaladda wararka ee Faris 2 ciyaaryahan iyo xubin ka tirsan shaqaalaha saadka ee kooxda ayaa ka laabtay go'aankoodii waxaana ay sheegeen inay dib ugu laabanayaan waddankoodii kadib markii xubno ka tirsan kooxda Iiraan ay magangeliyo dalbadeen intii uu socday tartanka gabdhaha kubadda cagta ee qaaradda Asia oo ka dhacay waddanka Australia murankan ayaa waxa uu yimid kadib markii qaar ka mid ah ciyaartoydu markii hore ay diideen inay qaadaan heesta calanka qaranka Iiraan ka hor kulan ka mid ah kulamadii halkaasi ka dhacay dowladda Australia ayaa markii dambe waxay siisay fiisooyin banaadinimo qaar ka mid ah xubnihii kooxda kuwaasi oo sheegay in aysan waddanku dib ugu laaban doonin sheekada marka halkan waxayna dul istaagno gabdhahan waxay u tageen waddanka Australia ka qaybgalka tartanka ciyaaraha kubadda cagta dumarka ee qaaradda Asia dagaalkii baa dhacay waxyaalaha cajiibka waxaa ka mid ah kulamadaasi ay ciyaarayeen qaar ka mid ah horta salaan sharaf bay taageen waxayna u taageen ciidankooda laakiin markii dambe arrintii waa la siyaasadeeyay dowladda Australia iyo wadamada reer Yurub qaar ka mid ah iyo xitaa Trump baa soo galay Trump wuxuu yiri gabdhahan qaar ka mid ah wixii dalbada magangeliyo hala siiyo dowladda Australia xoogaa way ka gaabsatay haddana wuu la hadlay baaq u jeediyay wuxuu yiri gabar kasto dalbata magangeliyo hala siiyo gabdhihii qaar ka mid ah ayaa dalbaday 5 baa dalbaday magangeliyo in la siiyo intii kale waxay yiraahdeen anaga waddankeena ku laabanayna iyadoo dagaal uu socdo wax kasto socda waddankeena ku laabanayna waxa loo ogolaaday magangeliyo 5tii la qaabilay oo magangeliyada la siiyay 3 ka mid ah ayaa hadda ka baxay arrintii waxay leeyihiin waa ka laabanay waddankeena aadayna arrinta marka waxa la fariin bay diraysaa waa tan koowaad horta qofka waddankiisa inuu jeclaado isagoo loo ogolaaday magangeliyo inuu ku noolaado waddankaasi Australia oo waliba dabcan gabar ah Iiraan ka timid in la qaadqaaday u baahanta sheekadeeda wax badan loo ogolaado sharciga hore laga siiyo guriga la siiyo nolol la siiyo laakiin gabdhihii 5 ah ee markii hore dalbaday magangeliyada waxay yiraahdeen maya anaga waddankeena ku laabanayna 3 ka mid ah 2 wali hartay oo go'aankii wali ku dhagan arrinta marka maxay kala muujinaysaa waxay muujinaysaa meesha ka saaraysaa warkay leh Iiraan gabdhaha lagu cadaadiyaa waa lagu dhibaatay ku qabaan siday rabaan uma labisan karaan waxaas oo dhan haddii ay arrintaasi jirto
gabdhaha ma soo laabteen iyadoo fursaddaas ay jirto kaaga daran wadankii dagaal baa ka socda duqeyn baa ka socota wax walbaa ka socda allow yaa ogaada dadaan ogahay maba soo laabteenba ayaga dhan waxay dhihi lahaayeen anagu meeshan baynu joogaynaa ma laabanayno marka wadaniyadda iyo daljacaylka waa muhiim arrintan waxay iftiiminaysaa daljacaylkay bay muujinaysaa waa tahay sheekadaasna halkaas aynu kaga gudubno waa yahay bal markan aynu eegno dagaalkan imika galay maalintii ama habeenkii 15aad tirada guud ee dhimashada ayaynu eegaynaa ilaa iyo hadda dhanka Iiraan ayaa u dhimasho badan sababtoo ah har iyo habeen waa la duqeynaya Iiraan ilaa iyo hadda dadka dhintay waa 1444 qof Lubnaan ayaa ku xigta 773 qof ayaa geeriyootay Israa'iil waxay qiranaysaa 14 qof laakiin waxa la arrintu intaas way ka badan tahay inkastoo 2,000 dhaawac ay sheeganayso laakiin waxa la dhimashadan inta waa ka badan tahay oo dabcan way qarisaa Israa'iil Imaaraadka Carabta 6 qof ayaa ku geeriyootay Bahrain 2 qof Sacuudiga 2 qof Kuwait 2 qof Oman 3 qof ciidamada Mareykanka ilaa 15 baa ka geeriyootay Ciraaqna waxa ku geeriyootay 26 qof waa hagaag haatan waxaynu soo gaarnay sheekada ugu dambeysay ee barnaamijka aynu ku soo gabagabayn jirnay aalab waxaynu ku soo qaadanaa sheeko ka duwan sheekooyinka barnaamijka aan idinku soo gudbino waxaan idin haynaa sheeko cajiib ah dunida waxa aad uga socda ficilada muslim nacaybka ha noqoto kooxaha mayalka adag ama cusuriyiinta oo ku xoogaystay wadamada reer galbeedka iyo sidoo kale meelo badan oo caalamka ka mid ah laakiin xitaa wadamadii reer Yurub ee ilaalin jiray qiyamka iyo diimaha iyo madax banaanida iyo xorriyadda diimeed ayaa waxa kacay xisbiyo mayal adag inkastoo muslimiintu ay cibaadaystaan oo masaajidi ay leeyihiin oo madarasooyinkii quraanka lagu baranayay ay jiraan haweenka ay ku labisanayaan xijaabkoodii iyo labiskoodii diinta islaamka iyo sidoo kale raggu ay iyagu qudooda qamiisadii iyo cimaamadii iyo waxa ay doonaan isticmaali karaan laakiin haddana ficilada ayaa soo kordhaya sida ay sheegayaan warbixino kala duwan iyo cilmi baaris badan oo la sameeyay arrimahan waxa la yiraahdaa waxa qayb ka ah dhibaatada ka taagan Yurub iyo waqooyiga Ameerika ee islaam nacaybka ku soo xoogaysanayo siyaasiyiin xukun doon ah oo dadkooda ka dhaadhicinaya dadkan muslimiinta ah inay ku xoogaysanayaan wadankii oo ay doonayaan dalalkooda inay ka hirgeliyaan shariicada islaamka iyo arrimo caynkaasi oo kala arrinta marka waa arrin doorashooyinka iyo siyaasadda la xiriirta laakiin haddana waa laga faa'iideysanayaa waxa sidoo kale qayb ka ah warbaahinta oo sawirro xun ka bixinaya muslimiinta iyo sidoo kale diinta islaamka laakiin sidaasi oo ay tahay meesha waxa ku jirta arrin muhiim ah ilaahay horey wuxuu u yiri diintaydan iyo kitaabka aniga ilaashanaya ayadoo sidaasi ay tahay cilmi baarisidii ugu dambeeyay ee soo baxay intuba waxay muujinayaan diinta ugu kobaca badan caalamka inay tahay diinta islaamka dagaalkii Gaza dhalinyaro aad u far badan iyo dad aad u far badan oo reer Yurub ah iyo kuwa Mareykan ah ayaa muslimay waxyaalaha cajiibka waxa ka mid ah ay ku muslimeen samirka waxa la arkayaa qoys dhan oo hal qof u ka soo haray aabihii ama hooyadii ama gabar ama wiil oo ayadoo meydkii dul taagan qofkaasi ama dadkaas intii soo hartay ayay leeyihiin alxamdulillah yani iimaanka cajiib sida uu yahay sidoo kale dagaalkan hadda ka socda bariga dhexe ee Iiraan lagu hayo dad badan baa soo muslimay haddaba dhacdo muhiim ah ayaa waxay ka dhacday masaajid ku yaal wadankaasi Mareykanka gaar ahaan gobolka Ohio dadka ka hawlgala oo wax ka tujiya oo khudbada jimcaha ka soo jeedina waxa kamid ah maasha Allah ajri xasanad Allah ka siiyo saaxiibkeen Abubakar Arbaan horeyna u ahaa wakiilka Soomaaliya ee wadanka Mareykanka dhanka diblomaasiyadda wax badan wax ka qora arrimaha caalamka isla markaasna dhowr jeer barnaamijyada HBN aad ku aragteen hadii ay ahaan lahayd telefishinka iyo qaybta Twitterka ee falanqaynta jimcaha Abubakar marka masaajidka ayuu wuxuu ku soo dhaweynayaa nin cadaan ah oo muslimay
ninka waxaa la yidhahdaa Cameron muuqaalka sidaad ku aragtaan ninkii waa la soo dhaweynayaa shahaadada ayaa loo qabanayaa wuu muslimayaa laakiin sheekada cajiibka waxay tahay Abuubakar intii uusan shahaadad u qaban Cameron walaalkan muslimka ee soo muslimay ayuu wuxuu weydiinayaa su'aal ah arrintan yaa kugu dhaliyey wuxuu leeyahay marka aniga go'aansaday oo masaajidka soo galay oo inaan muslima aan ku tala galay haddaba aynu daawanno muuqaalkan waa 1 daqiiqo in yar aynu daawanno ninkii oo shahaadada loo qabanayo iyo sidoo kale sida arrinta ay u dhacday question and then give a short talk inshallah. Brother Cameron, and are you coming on your own with your own will, thought about what you're getting into? Yes, I am. MashaAllah. So say after me, we'll say it in Arabic, and then we'll say it in English after that. Okay? أشهد أشهد أن أن لا إله لا إله إلا إلا الله الله وأشهد وأشهد أن أن محمدا محمدا رسول الله. رسول الله. ما شاء الله halkaas marka waxaa ka muuqata diintan alla inuu ilaashanayo si kasta oo la iskugu dayo in la cusuriyeeyo in la dagaalamo in la sumcad dilo intaba diinta ugu kobca badan bay noqotay caalamka wahagaag ما شاء الله انت ayaan ku soo gabagabeynaya caawa barnaamijkii qubanaha waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka si aad ula socoto wararkan iyo barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbino haddii aad ka cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waad ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka waa inoo barnaamijka xiga insha Allah inta ka horeysa nabadgelyo